بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan halkan ka soo jeedinayaa warbixintii maalinlaha ahayd ee aanu fiid walba u soo jeedin jirnay hadii aanu nahay gudiga ka hortagga caabuqa COVID-19 dadweynaha reer Puntland warbixintani maanta waxay idinkaga imanaysaa magaalada ganacsiga ee Puntland magaalo xeebeedka Boosaaso warbixintu waxay ku bilaabmaysaa oo ka kooban tahay 5 qodob waxayna ku bilaabmaysaa sida tan gudigu wuxuu la socodsiinayaa shacabka Puntland inaysan jirin kiisas cusub oo loo karantiineeyay ka shakiga ama lagu xaqiijiyay inay qabaan caabuqa COVID-19 deegaanada Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bisha afraad 2020 number 2 gudigu wuxuu maanta kala wareegay dawladda Imaaraadka Carabta gargaar bini'aadanimo oo ka kooban agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga caabuqa COVID-19 gargaarkaas ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaana si rasmi ah ula wareegay gudiga ka hortagga COVID-19 number 3 gudigu wuxuu dadweynaha reer Puntland ku baraarujinayaa in ay joojiyaan tegista goobaha dadku isugu yimaado isla markaana ay guryahooda joogaan ilaaliyaana kala durugsanaanta tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah awaamiirta dawladdu ku soo rogtay dhammaan deegaanada Puntland si loo xaqiijiyo badqabka shacabka 4 gudigu waxa uu si dhow ula socdaa xaaladda caafimaad iyo tan amni ee muhaajiriinta ajaanibka ah ee ku sugan deegaanada Puntland kuwaas oo dhawaan soo galay qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka 5aad ugu dambeyn gudiga ka hortagga COVID-19 wuxuu shacabweynaha reer Puntland ugu celinayaa dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan sanduuqa taakulada iyo ololaha ka hortagga caabuqa COVID-19 wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh